qaybta shanaad waa qayb aad u muhiima waxaa loo yaqaanaa waa financial role waa financialkii waa lacagtii weeyaan lacagtu waa shay aan aad u wada jecel lahay inaynu wada helno markay inaga yaraato ama aan weynana waa shay aan ka naxno ama aan dee ka murugoono weeyaan marka nolosheenna financialka ama dhaqaaluhu qayb muhiima ayuu ka yahay marka qorshahaaga nololeed qorshe nololeed markaad naftaada u dejinaysid dhinac walba waa inuu aad ka dhammaystirantahay baa loo baahan yahay qorshahaaga nololeed waxaad ku darsanaysaa financialka ama lacagta waa inay kaaga yaallo qorshe sugan oo muxuu ahaye cad waa inaad ka leedahay marka waxaan kuu sheegayaa 4 major financial equations 4 qodob oo muhiima oo aad ku samayn karayso horumar dhaqaale oo qorshahaagana aad ku darsanayso marka waa sidii Ilaahay yiri subhanahu wa ta'ala wabtaqi fima aataaka Allah ad-dar al-akhirah Ilaahay wuxuu wixii Ilaahay uu ku siiyay daarta aakhiro ku doon maxaa ku xigta walaa tansa nasiibaka min ad-dunya imika ad-dar al-akhirah iyo qorshiin uga yaala horaan uga soo baxnay kadibna waxaan ku soo xigsiinay xiriirka bulshada la lahayn iyo waalidkeena iyo dadkii waxaan ku soo xigsiinay hadana cilmigii aynu baranay iyo qaabkii noo horumarin lahayn waxaan ku soo xigsiinay jirkeena iyo caafimaadkeena qaabkii noo ilaashin lahayn waxaan soo cunay imika adduunyadii waa adduunyadeeni iyo qaabkii noogu horumari lahayd waayahay adduunyada ama lacagta marka loo yaqaan waxa ugu horeeya waa inuu aad double garaysaba leeyahay your monthly income every 3 years qorshaha waa qorshayaad ka dejisanaysa xagga dhaqaalaha waxa leeyahay ku soo gala bishii waa inuu lebin laabmo 3 sanaba hal mar مثلا imika maanta waxa ku soo gasho bishii waxaad ka soo qaadaa $200 meel baad ka shaqeysaa $200 baad ka qaadataa 3 sano kadib waa inay ku taalo qorshaha inaad gaadho inaad mishaarkaagu noqdo $400 dadka qaarkood waxa jira meel uun ka shaqeeya ama hal meel uun jooga mishaarkoogu aanu kordhin halka uun taagan 10 sano waxa laga yaabaa mishaarkiisu inta uu kordhay inayna xataa dhabalka inay wada gaadhin bayna inay libin laab ayna gaadhin marka waxa loo baahan yahay xagga monthly income-ka lacagta ku soo galaysa bishii waa inay libin laabanto 3 sanaba hal mar qorshe marka qorshe ay ku libin laami lahayd waa inaad gasho ay adiga lagaaga baahan yahay waayo waxa jirta shaynu isla wada naqaanada idinku libana dhaqaalaha waad barateen economiga waad qaadateen lacagtu maalinba maalinta ka dambaysa qiimaheedu si socda imika $100 20 sano ka hor wixii uu ku goynay iyo maanta wuxuu ku goynay ma isku midba wax u faa'iido leeyahay ma jirto marka waxa laga wadaa hadii dhaqaalahaagi halkii uu taagan yahay oonad horumar dhaqaale aanad sameeynin imika lacagta aad qaadataay inkastoo lacagta si kastoo u badan tahay 2 sano 3 sano kadib step by step u soo yaraan doontaa hadhow toole waxay noqon doontaa mid aan kugu filayn marka dhaqaaluhu waa laga maarmaan inta dhalinyartihiin waxaan idin leeyahay shaqaysta taad imika marka waxa loo baahan dhalinyar aad tahay inaad income samayso dhaqaale samayso ku dadaasho in aad shaqaysato marka waxa jirta maxaa la radaa qodobkan idinku imika arday baad tihiin la idin kuma xisaabinayo idinku wadiimka cilmiga baad wadaan laakiin halkani wax qorsheeygu wuxuu idin bilaabmayaa after marka aad graduation ka samaysaan ee aad qalin jabisaan waayahay marka xagga dakhliga bishii waa inaad ku dadaasho 3 sanaba hal mar inuu ku libin laamo qodobka labaad waa inuu double garaysmo ku libin laamo the ownership mulkiyadu every 5 years mulkiyadaadu waa inay libin laabanto 5 sanaba hal mar waadiyada macnaha waa halka ugu yar ee aad horumar dhaqaale saa u sameyn lahayd weeyaan mulkiyad maxaa la yiraahdaa waa waxa aad hanti ama aad mulki adigu aad u leedahay imika مثلا ka soo qaad maxaad mulki aanu aan leeyahay hanti haystaa isku geynaysa jagaad leedahay مثلا guri baad leedahay gaari baad leedahay computer baad leedahay isku geegee waxa alle waxaad hanti haysato dhanba one time baad isku geynaysa 5 sano kadib qorshahaaga waa inay ku jirto 5 years kadib waxa imika maanta aan haysto dhan double waa inaan haysto guri hadaad lahayd 5 sano kadib laba waa inaad yeelato jaga hadaad lahayd laba waa inaad yeelato gaari hadaad lahayd lacag mid kale ku geyso waa inaad haysato saasaad marka aad u xisaabtamaysaa okay hadaba waxa muhiim ah qodobadan imika marka la sheegay horumarka dhaqaale laba qolo oo dadka kamid ah laga reebaa oo macnaha horumar dhaqaale aanan sameyn karin qolo iyaga waqti bay kaga xiran tahay xag horumarku qolona waligood waa joogto qoladan horumarka sameyn karin waxa weeyaan kowda waa ardayda isaga wax barasho ku jira wali horumar dhaqaale iyo hawlahaas ma gaarin qolada labaad ee sameyn karin waxa weeyaan
waa shaqaalaha waa qofka meel ka shaqeeya shaqadu way fiican tahay inaad meel ka shaqaysato gaar ahaan inaad intaad dhalinyarta tahay weliba aad shaqaysato way wanaagsan tahay laakiin iminka idinku waad qalin jabinaysaan waxa ugu badan aad ku xisaabtamaysaa waa inayna noqonin inaad intaad CV qorataad qof u geysato oo tiraahday shaqaalaysii hadday dhacdana waa inay kaa tahay in aad ku tababaranaysa waa inay noqoto qaacidii leedahay marka 3 sano ilaa 5 sano inta u dhaxaysa waa inaad kaga baxdo shaqaalanimada 5 years 5 sano waa in adiguna aad hanti samaysan karayso waxaad ka urursan karayso aad ka socon karayso weeyaan marka weligaa waxaad ku dadaashaa in aad yeelato waxaad ku fikirtaa adduunyadani waa few days waa maalimo aad u yar weeyaan kadibna waa laga tegayaa maalimahaas inaanad billi aanad ku noolaanin adigu aad samaysato mashruuc adigu aad leedahay marka aanu inaguma talinayo employee inaad noqoto shaqaale laakiin waxaan idin talinayaa ownership inaad noqoto qof adigu mulkiile ah in aad noqoto ama aad iminka fikirkeygii iyo qorshaheygii aad hayso ana kale jawiga caawaad buu ku leeyahay anigana way igu sii kuliyo bahladana aad igu shidan marka horaan iska dhamayna insha Allah marka 30% marka aad gashato sheerarka oo hadhow ku anfici doona 40% waxaad gashanaysaa real estate waxa weeyaan waa jawooyinka iyo guryaha iyo waxa loo yaqaan waayo jagada ama gurigu waa waxyaabaha ugu badan ee laga intifaaco marka aad lacag hadhow tolo gashato waa lacag halka ku taala cid ayna cashuur ka qaadeen cid ayna ilaale kaaga rabin hadhow tolo marka aad muddo kadib aad iibisana aad ka faa'iideysan lacag aad u fara badan marka aad rabto hantidaadu in hadhow tolo double gareysanto mulkiyadaadu ay level laabanto kharashkaagu uu bato meelaha ugu seefsan ee ugu aaminsan xataa haday dagaaliyo wax kasta dhacaan imika sheerka shirkadda ku dirtay laga yaabaa wadanka haduu dagaal ka dhacay in lagu kala jiro laakiin real estate ku guriga halkii uu ku oolaya marka 40% qaacidada ugu fiican ayaad gashan kartaa 30% ka soo haray waxa weeyaan waa direct investment waa investment directiya oo matalan ganacsi socdo oo markaa shaqeynaya inaad gashato weeyaan marka wixii lacag hadhow toole idin soo galay insha Allah ama idinku aad urursataan saasaad u kala qaybinaysaa in direct aad ka dhigaysaa 30% oo waxa weeyaan direct oo meherad iyo ganacsi baad ku haysanaysaa in share baad ku darsanaysaa 30% 40% waxaad gashanaysaa real estate sida hadii qodobada aan soo sheegnay hadii aad qodob aad u fuliso la shaka waxaad sameyn doontaa horumar dhaqaale adiguna aad si wanaagsan uga noolaan kartaa adduunyada intaad ku nooshahay dadkaaga iyo ehelkaagana aad wax ku tari karto wax badan aad hadhow aad kala bixi doonto